markaad qur-aanka dib ugu noqoto waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya salaadu inay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee nolosha mashaakilkeeda loo adeegsada in lagaga hortago مثلا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلهي الرسالة صار رسالة الله صدري وحي الله شاق وحي قا وحلا فريد دوني دون إنه واجهه كهرتغه وحلا فريد دوني دم حي إنه كهرتغه بدله أتيك هاتي له قرادة دوني ده بدل محاد سمعين له هذا الكون كله بشر كدول صار هذا لقى ربعين بدشوا waxaan oran lahayd project plan baan u baahanayaa dhaqaale intaa leeg dad intaa leeg aqoon-yahano intaa leeg ciidamo intaa leeg waxa intaa leeg marka waxaa isla helo ayaan maxay ayaan projectkaa fulin karaa inaan dunida wax ka bedelo laakiin nabiyullaahi maxamed ilaahay wuxuu u tilmaamay warkaa culusna waan kuu sheegayaa waxaad adeegsanaysaana waa kan maxaa lagu yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إلهي يقول وركن استوضوب يوم كان ازداد يوم كعب الليل هبينك انتي سبضا كعوتك نص قارسية ما وحير كيريه أما كبادي لكن وقت بدنت كبال لي ما وقت بدنت كذا الله فري إلهي وحلي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ورعلص بانك فرينا وركع علص الله فريا ووحيك وقرانك كسو دقيا قرانك قاد بال لي يضدك ودنك هرتك معتقد كودا هي سياسة دودا هي دقا كودا هي دقاله هودا هي سيف فكريا من الدنيا بدل هذا الله صادري إن الدنيا بدسه لكن وحال لوغا دغاي زاد marka waxa sahay looga dhigay project plan kiisaasi wuxuu ku fulin lahaa waxa looga dhigay inuu rabbigii ku xidhmo oo badiyo xidhaantu alle ku xidhan yahay habeenkii in badan ka codtu ka baleeyay yani goormay aydan soo degtay waxa culimada qaar ku tilmaamaan inay tahay suurada saddexaad ee quraanka soo degta yani waxa ka horeeyay baa la leeyahay اقرأ باسم ربك يا أيها المدثر لو كان يضوء الرية كدمنا آيات كما سعودك بها علماء قبال وحال اسكوا فقصية سدح ذا الصورة دوت هي صورة النون قيبتي ظهره أفرتا قيبود إن يهين أفرتي قيبود وقوه الرية قرآن كسعودك النبي محمد كسعودك عليه الصلاة والسلام إذا النبي وقته لوط المام ينو دريدو دنكو هرتغو للي قول علس بالقودي بي ayaa waxa la faraya waxa soo dhan waxaad u adeegsanaysaa kaga baxaysaa xidhiidhkaad alla leedahay inuu xoogoobo oo ah salaad badan inaad tukato sidaa awgeed waxaynu arkaynaa inay tahay mashaakilka bini aadamka ka hor yimaadee culays kasta leh waxa loo adeegsaday